innagu haddaynu soomaalinay waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladdii weynayd waa lagu heshiin waaye ina kala gooya gobolka ina kala gooya waa ina yareeyadii reerkaa heshiin waaye laba suldaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeennu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaadee haystay baa isqabtayoo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeennu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa waa taasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira magaal baa intuu u yimi jebiyey maya caalam alislaam innaga isjebinay gaalkuna dabku inala huriyey mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horow soco waa ku garab taagnaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya united nationka sidaa yidhi wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu kaa riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay weliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yidhi waxbaa kuu yaro dhiman oo wisaaya ah baad u baahantay hay-adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idiin sheegayaa soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose 900 oo saacadood buu ahaa curriculumkeedu 900 oo saacadood ayuu ninka yar elementary schoolka dhigtaa curriculumkiisu ahaa markay isdishay ee jabtay ayaa UNESCO timo waxay tidhi annaga idiin qoraynaa idinku dee waa waalateen ileene annaga idiin miyir qabno annaga idiin samaynayna manahijtii laakiin caqligiinnu rehabilitation buu u baahan yahay ma qaadi kartaane 540 saacadood baanu idinka dhigaynaa 540 saacadood syllabus ku salaysan ayaanu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan markaad jabto waa lagu talinayaa si kastaba waa lagugu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waad daciifaysaan oo awooddiinnuna waad tegaysaa oo cadowgii baa idinka faa'iidaysanaya ha isqabannina ayaa haddana aayadda waxa lagu gebagabeeye u fiirso wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ile bini aadamku qof waliba akhtaadiisii buu wataaye markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xallilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la yidhaahaa ina yareeya si xalku inooga yaraado kun nin baynu ahayn soomaha waa isqabannay haa mal xal isbari weyne 400 iyo 600 inoo kala jebiya marka nin waliba gruubkiisu ku farxaya waa inta isku ra'yiga haya mushkiladii baa soo yaraanaysa ilaan gruubkani markay hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadii inoo kala jeex weeyaan gooso intaydan goosanaya 200 baan ina qaataa hadda 300 ama 400 qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si caqligu ku dambeeyo fakaraya waxay dhahdaan ay mushkila timaada solution bay leedahay xal raadino mufaawadaadka aan badino wada hadalka aan badino xal aan raadino there should be a solution wa inuu jiraa wado mushkiladda lagu xallili karaa saadaradeed innagu haddaynu soomaalinay waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladdii weynayd waa lagu heshiin waaye ina kala gooya gobolka ina kala gooya waa ina yareeyadii reerkaa heshiin waaye laba suldaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeennu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaadee haystay baa isqabtayoo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeennu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa ma jirtaa solution aan kaga bixi karnaa qaab aynu horo wixeennan xooggeenno inaan kala dirin inta mushkiladda ma ka saari karnaa meesha tan caqligu saasuu ahaa qumaniinu keeno laakiin inaga caqligeennu wuxuu keenay dee baadiyaynu iskaga nooleen baadiyaha marka la isqabto dee gabadhun baa la yidhahdaa naa awrka ii qabo intaad heeryada saarto waxaa ku gurato ayaa dabeetana bannaanka ilaahay kale
ay baad isaga guuraysaa ilaa waa dhul wada bannaan buu ahayo meeshaa doontaa iska degaysa caqligii guuritaanka ahaa baa inagu jira oo ah labadiis qabtaaba inay awrta inoo kala furin ay yidhaahdaan dabeetana uu ka tago caqliga bini aadamkee suubane ma aha dadka kama dhib badnin dadka badh baa moodaya soomaalidu inay mushkilad badanto waxaan u arkaa soomaalidu dadka ugu mushkilad yar leynayeen waa dad isku afa isku diina isku dhaqana waxay ku kala gedisan yihiinoo badanaanay jirin yes waa isyara duldulmiyeen ama xoolay kala qaadeen ama dhib baa dhex martay dhibi waa jirtaa laakiin ma aha dhibta dunida ugu buuran mushkilaadka dunida ugu buuranna ma aha waa mushkilaad xal loo raadin karayo sida ogeed ilaahay aayadda wuxuu ku gebagabeeyey wasbiruu in allaha maca saabiriin war sabra baa la yidhi sabra waa qaabka mushkiladda loo xallilo ha kala yaacine sabra oo kiina xun u sabra oo dulqaata oo kala dambeeya oo wasbiruu baa ilaahay yidhi in allaha maca saabiriin